السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا مقال عزب يمانتي رمضان كريم. sidee noqonaya adduunku hadduu dhagax soo dhaco? haddaan nahay bini aadamka waxaan jecelnahay inaan ka horreyno adduunka, ogaano waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin qiyaamuhu goorma ayuu dhacayaa. mararka qaarkood waxay arrintan timaadaa marka aan la kulanno masiibooyin dabiici ah sida cudurka dilaaga ah. miskiinkii aadamaha ahaa oo la daalaadhacayay dhibaatada xanuunka coronavirus ayaa waxaa wakaaladda saadaasha hawada sare ee NASA sheegtay in dhagax ama asteroid uu kusoo dhow yahay dhulka kuna soo dhacayo goordhow. waxaana warkan aad u daabacay warbaahinta reer galbeedka oo ay rumud u tahay wakaalada wararka ee Daily Express oo runtii xil weyn iska saartay sidii ay u sii jiidan lahayd dad badan oo soo booqda website-keeda iyagoo abuura warar dadka ka cajib geliya oo ay ka mid yihiin inuu dhagaxan balliciisu dhan yahay 4 kilomitir uuna kusoo dhacayo dhulka baabi'in doonana aadamaha iyo saadaalo kale oo ay ka mid yihiin inuu qiyaamuhu taagan yahay. subxaanallahi. haddaba arrinkan oo aan ugu kurgalay waxaan raadiyey xogta dhagaxa dadku aad u hadalhayaan waxaana kusoo koobayaa intan soo socota. dhagaxan waxaa loogu magacdaray 1989 oo lagu qiyaaso inuu ku fadhiyo bad isku wareeg ah oo 4 kilomitir. waxaana lagu qiyaasaa inuu yahay kalabar xajmiga buurta Everest. waxaana lagu qiyaasaa inuu dhulka u jiro masaafo dhan 3.9 milyan oo mayl. haddaba aan idin caddeeyo, ma jiri doono dhicitaan dhulka iyo dhagaxan maadaama ay masaafadu isku jiraan tahay 16 jibaar masaafada ay isku jiraan dhulka iyo dayaxu. haddaba warka sheegaya inuu dhagaxan dhibaato nagu yeelan doono ayaa ah inay jirto xeerarka hawada oo ay ka mid tahay in haddii uu dhagaxu soo jirsado masaafo ka yar 4.8 milyan oo mayl uu khatar gelinayo adduunka aan ku noolnahay. masaafadan oo u dhiganta in ka yar 0.5 astronomical unit. halkii astronomical unitna waa cabirka masaafada u dhaxaysa dhulka iyo qoraxda. maadaama uu ka badan yahay 1 kilomitir bad ahaanna looma barbardhigi karo hub allaale iyo hubka uu aadamuhu samaystay. haddii uu dhulka kusoo dhacana waxa uu 10 jibaar ka badnaanayaa khasaarihii uu geystay qaraxii Hiroshima ee waddanka Japan ee dagaalkii labaad ee adduunka. haddii uu dhulka kusoo dhaco ilaahay naguma keenee waxaa hawada ku xirmaya boorkaasoo xiraya ilayska qoraxda. maxaa dhici karaa haddii aan weyno ilayska qoraxda? haddii ilayska qoraxda la waayo, cimilada adduunku waa qaboobaanaysaa waxayna isku beddelaysaa baraf iyadoo ay ku xiran tahay muddada boorkan uu qarinayo hawada sare. bal ka waran haddii uu dhagaxan ku dhaco badda, maxaa dhacaya? ilaahay naguma keenee. waxay sababi kartaa mawjado aad u waaweyn kuwaasoo awood u leh inay qariyaan jasiiradooyin iska dhan iyo magaalooyin waaweyn. waxaa jira theory ay ka mid yihiin qaabka adduunku u rogmayo oo ay ka mid ahaayeen in 20 milyan oo sano uu kusoo dhaco dhagax ka weyn 5 kilomitir. Katie Extension oo dabargooyay xayawaanaadkii dinosaurka ayaa wuxuu theory-ga kanu sheegaa inuu dhacay 65 milyan oo sano ka hor. sidoo kalena waxay wakaaladda saadaasha hawada sare ee NASA iyo tan Yurubiyanku isku dayaan har iyo habeenba sidii ay ula socon lahaayeen hawada sare iyo fursadda uu dhagax ugu soo dhici karo dhulka iyagoo isku daya ama inay burburiyaan ama beddelaan wadiiqada uu marayo dhagxaanta ama asteroidska soo dhaca. waxaa jira isku dayo cilmiyeysan oo wakaaladda NASA isku dayi doonaan dhammaadka sanadka 2020 iyo sanadka xigay 2021 haddii eeba nafta noo daayo, iyagoo diraya spacecraft si ay u burburiyaan dhagxaanta nooca kan oo kale ah ama ugu weeciyaan ama ugu yaraan u beddelaan wadiiqada ama orbitka uu ku socdo si uusan adduunka ugu soo dhicin. haddaba markasta tala saaro eebbaweynay yaysan ku fududayn bini'aadankan qaafilka ah oo jecel wax kasta inuu hormuud u noqdo, gaar ahaanna saadaasha adduunka iyo waqtiga uu qiyaamaha dhici doono. subxaanallahi. mahadsanideen. fadlan haddaad ku cusub tahay janalkeena waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad ku soo biidho janalkeena Horyaal kana mid noqoto bahda dhanka kore ee nolosha.